Faa'iidada iyo khasaaraha labaduba waxay la socdaan samayskeeda. Isku dheelitirkana waa mid u baahan dhinacyo kala duwan. Shinnidu waxay ka kooban tahay qaybo badan balse waxa ugu caansan boqoradda. Boqoraddu waa ay ka muuqduwan tahay shinnida inteeda kale, waxaana ay leedahay calaamado muujinaya boqornimadeeda. Intaana la qabanin shinnida dadka yaqaana waxay eegaan halka ay ku jirto boqoradda. Aqiid Maxamed Biyow waxa uu markan uu qabanayaa boqoradda si uu shinnida uga saaro goob ay si lama filaan ah ugu degtay. Shinnida ayuu sheegay inay leedahay faa'iido iyo dhaqaale badan. Shinnida nin yaqaano oo nin iska joog la maraa nin yaqaano lacageeyo halkii sanduuq waa 10 litir waa ninkii markaas oo ku dadaalo waay ninka laakiin meel abaar iyo meel only iyo meel qax iska geeyeen taas oo kale quraansho ama qorweyla iska dhalaa waana ka guuraysaa marka faa'iidooyin badan ay leedahay. Qabashada shinnida iyo sidoo kale in lala saaxiibo ayuu sheegay Aqiid inay tahay wax la barto aad ugu fudud bulshada. Hadda boqor waa ku tusi waa aragti shinnida hadda dhex gashid oo nacabsan oo sanka bas harahan sanka iyo afka bas iska xirtid neefta iska xirtid caadi gacanta u soo qabsan kartaa wax dhaxal la yiraahdo ma jiraan shay kasta waa la bartaa. Shinnidana ninkiiba ka cabsan oo dhex galo oo si fiican u fiirsado boqoradda hore ka fahmaayo waa umeeko waa bahal gaduudan oo daba dheer leh oo ka qurux badan ma sha Allah. Hadda ku wareertid oo markaas aad arki waysidne shiba laga noqdaa meel laga fariistaa shinnida bis la fiirsadaa meeshay ku jirto ayada ku sheegay ma qartoomayso. Aqiid Maxamed Biyow waxa uu ka sheekaynayaa marxaladii kala duwanaa uu ka soo maray qabashada shinnida iyo sidoo kale qaabka uu raro dhibaatooyinkii kala duwanaa uu ka soo maray. Shinno oo dhibaato aan kala kulmay waxa iigu horeysay mar oo nimanka saaxiibay oo wax ka baranayo aan ka soo tagay anoo waxba aqaana dhahayo ayaa shinno u tagay geetilaal fuusho ilmeyna haysi markaas dabkii aan nacsi u ahay haddaan dab markaas aan dab aan haasto hadduu ilaahay kuu day waa kaadkaan lahay balse ilaahay ma qadarin gacmaha iskala galay gacmaha markay iskala galine wejigayga ilaa gacmahayga ku tuurtay sidii qofka bini'aadanka madaxiisa tinta ugu taala camal aniga dhan wada mici iga dhigtay wax dhibaato ene oo isbedel iguma qaban laakiin waayo cunti mana soo qaban wixii ka dambeeyna inay ka guulaysto maahane igama guulaysan.